dhegta markaan gashanayo ayuu ka bilaabanayaa videoga. waa tahay akhirta marka la isku soo noqdo wanaagsan maanta barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay qaybtii labaad ee reactionka qaabka loo suubiyo. maanta miiska waxaa inoo saaran nin lagu magacaabo Big Bro heestii cusbeed oo soo saaro ay ahayd Imaamad Kultura. inta aan gudan galin koor aan horta idin xasuusiyo barnaamijkeeni qaabkii aan u sameyn lahayn iyo qalabkii aan isticmaal lahayn sida uu nagu xiran yahay. ila soo سوجدين فيلادان انت كبحيسو waa line input way سوجدين halkaas ay ku qoran tahay intana line ayaa ugu qoran oo qaybta hoose. fiiladan marka ay soo baxdo si u soo socoto waxa ay soo gashaa سوجدين computerka ay soo galaysaa oo inta ayaad kaga isticmaali kartaa. taasi micnaheedu waxay tahay muuqaalka aan reactionka aan ka bixinayo inta ayuu ka iman doonaa. okay haddii aan rabo in aan computer aan ka isticmaalin oo aan mobile aan isticmaalo labadan fiilo ayaan bixinayaa oo input ka aha ama maxaa la line ka aha kadibna mobile ka Sawjidin waxa ku xiran asigana fiiladan ayaa ku xiran oo ah labadeeda af oo ku hana kadibna gaduudka ayaan gelin doonaa sida caadadeed ama idin sheegay iyo cadaanka ayaan gelin doonaa. taas micnaheedu waxay tahay muuqaalka aan ka sameyn doono reaction wuxuu ka iman doonaa mobile-ka kadibna inta ayuu soo dhaxmar doonaa. taasi waa labada qaab oo aad ku sameyn kartid videogaaga haddii aad rabtid in aad mobile ka soo aad ka daarto muuqaalka ama mobile inaad ka dubtid. labadan fiilo ayaa ku kala xukumayso. fiiladan iyo fiiladan dabada dambe ee mobile-ka iyo computerka gala ay kala duwan yihiin laakiin labadan af ee inta ka galayo ee 2RC eeda isku mid ay ka yihiin fiilooyinkan laakiin gadaal dambe dhinacan hore ayaan soo sharxay. okay fiiladan dambe ee ah output-ka Sawjidin meeshan waxa ku qoran output ayaa ku qoran intana waxa ku qoran track. okay fiiladan si u soo socota Sawjidin way soo socotaa kaamirada ay gashaa Sawjidin kaamirada qaybta loogu talagalay jeg in laga geliyo ayay ku jirtaa. hadda si fiican u fiirisid reflection ka daaqada ka imaanaya ayaa xoogaa boost gareynay. okay Sawjidin waa kaasa aan dib u soo laabana mar kaleeto. okay meeshan Sawjidin headphone-ka ama qaybta dhagaha ee meesha ku sawiran fiila ayaa ka soo baxda. fiilaas soo socoto waxa ay soo gashaa dhagahan ayay soo gashaa. marka qaabka guud ahaan ay maanta miiska uu sharxan yahay waa qaybtaas. okay microphone-ka Sawjidin fiiladan ayaa ka soo baxdo meeshaas hoos ayuu soo dhaxmaraya fiilada waa qariye inta ayuu imaanaya microphone-ka waa kana. okay waxaan filayaa marka qaabka guud ahaan ee maanta miiska u sharxan yahay iyo qaabka ay wax u dhacayaan in aad qof walba u fahmi karo. haddii mobile aad mataqaanaa ka duubaysid fiilada ayaa isticmaalaysaa haddii aad computer aad mataqaanaa video reaction ka bixinaysa ka duubaysidna fiilada ayaa isticmaalaysaa. marka wax weyn ma ahan marka ani maanta waxaan isticmaali doonaa computer aan isticmaali doonaa laakiin waxaad u ogaataa anigoo mobile isticmaalayo oo kaleeto ka soo qaad labadooduba waa isticmaali karaa adigana fiiladaas ay u baahan tahay. let's go marka waxaan filayaa in aad ka soo bogateen barnaamijkaas ama qalabka soo isku xirxiran yahay waa soo aragteen. hal tip ama hal qiyaana ayaan idin raacsiinayaa marka aad rabtid in aad video qofka leeyahay reaction aad ka bixisid haddaba ogow qofkaasi inuu ku dacweyn karo. ha isku soo qaadan video qof ee cola ay kala dhaxayso haddii uu ku ogol yahay waad soo qaadan kartaa ama haddii asiga uu ka tanaasulo in uusan ku dacweynin wuu ka raafi karaa laakiin haddii qof kale video uu leeyahay aad soo qaadatid wuxuu ka arki doonaa YouTube-kiisa dhexdiisa meel lagu magacaabo margin video kaasi oo lagu ogeysiin doono in videogiisa qayb ka mid ah qof kale uu isticmaalayo taasi oo dacwad uu kugu gudbin doono isla markaasna laga xiri doono videogaaga. marka maanta videogeena waxaa miiska noo saaran nin lagu magacaabo Big Bro. okay Sawjidinba hadalka ayaan ka soo hormariyay video walban reactionkiisa waxa laga soo hormariyaa qayb hore ee mataqaanaa lagu faahfaahinayo videoga hordhaciisa waxyaabaha maanta laga hadli doono iyo barnaamijkiisa. kadibna markii aad rabtid video inaad maalgelisid videoga reactionka ka bixinaysid iyo videogaaga markaad isku balance gelisid waxaad u baahan tahay meel calaamad ku noqoto. tusaale ahaan dadka isticmaalo reactionka waxay haystaan badanaa dhagahaasi waxay ku isticmaalaan meesha uu reactionkooda ka bilaabanayo iyo meesha uu ku dhamaanayo. tusaale ahaan aniga hadda videoga ayaan bilaabaya waxaan leeyahay let's go kadibna dhagaha ayaan xirnaya. taasi micnaheedu waxay tahay videoga meesha uu ka bilaabanayo waaba aqaanaa sababtoo ah dhagaha markaan gashanayo ayuu videoga uu ka bilaabanaya.
inta kaleto dhaga iguma jiro. Ila soco videoga ayaan hadda guda kali doonaa. horta videoga qaabka oo ku bilowday caadi maaha sababtoo ah videoga horta waa laga soo diyaariyay horena waa idin kugu sheegay oo ahaa haddii aad hadli kartid waa heesi kartaa. Big Bro uguma xumo dadka soo heesay, macnaha dad fara badan soo heesay. dadka taagan haddii ani waxaan u tartami karaa youtube-yada mataqaana caalamka aan la tartami karaa sababtoo qofka muhiimadu xitaa inuu hees oo soo qaado, qofkii u diiday inuu hees soo qaado. kaas haddii oo mataqaana oo hees oo mataqaana jacbur ah English iyo Soomaali lagu qaaday, kan wuxuu u dhow yahay hees oo xigmadaysan sababtoo ah hees oo meel ku socoto waayaba oo macnaha la fahmi karo qofka hadduu hal mar dhageysto mar labaad mataqaana dhageysan karo. iyo wad mar kale taan sii dhageysano. heesta magaceeda waxaa la dhahaa Cimaamad ku tuura. okay videoga wallahi ninka sameeyay caadi ma sababtoo ah asigoo socdo waxa laga bedelay shaatiga iska bedelay macnaha uu socday dhax fanaanada wati fanaanada laga bedelay dhax automatic jaa wuxuu wataa jacket laakiin meesha lagu duubanay hore ay kugu sheegay waa meel kala xiran. abwaanka sameeyo wallahi abwaan cayn ma yasaad. okay laakiin abwaan cayn ha ahaado anigana list ya arkay mataqaana oo la soo qoray dadka mataqaana oo videoga ninka soo duubay, videoga mataqaana abwaanka soo qaaday, laxanka qofka saaray iyo waxaas oo dhan waa idin soo gudbin doonaa. ila socdo. horta su'aal ay weydiina Big Bro koofino qaato qof walba ogtaa oo mataqaana inuu bidaar leeyahay laakiin garka cirada saxmi ah oo loo dhinac ka soo geliyo mase asaa sheen oo mase bleed soo marsada bal kalarka lagu marnay. allah hooyo gabadha waa cuduro calafku ku siiyo maqabaacil haweene Cimaamad ku tuura. wallahi horta heesta actionkeeda iyo waxa dhan waa la wada sameeyay sababtoo ah si iskula socoto qaabka oo Cimaamad ku tuura markii la dhaho 6 cunug ama 4 cunug mataqaana labada dhinac ka soo baxaana Cimaamad lagu tuuraya. Big Bro laakiin heestan hal meel lagu duubay dharkana inta badan dharka hal nooc mataqaana oo laba nooc isku bedelaya ma maqaan. jaakada oo James kan inuu big oo mataqaana kaafi cabdino leeyahay maleynaya aniga taas badana oo ku arkay inuu asliyan waa laga yaabaya. okay no wada. gabadha waa cuduro calafku ku siiyo maqabaacil haweene. gabadha waa cudoono ciil habeene laakiin waxa la director ka Najiib ka ahaa. Najiibka kale qofku yahay ma aqaano ana aqoon ma leeyahay laakiin videoga qaabka loo sameeyay iyo meesha lagu duubay mataqaana qurux badan tahay, editing la saaro qurux badan yahay inkastoo san gaarin professional qaabka Soomaalida kaleeto oo u sameeyaan kale ay kale sameeyay Soomaaliyeed. markii aan ka soo tago kaas qofka waxaa la rabaa markii music oo socoto oo hadal oosan ahayn qofka inuu dhaqaaq sameeyo oo meesha uu soo taagnin. laakiin muusikada markii dhaxtaalka oo heesta intuu qaadeen iska taagan yahay oo kaleeto meesha iska taagan yahay marka ma dheelaa xataa dancing qofka inuu dadka la mashquuliyo inkastoo heesta ay tahay hees mataqaana si caadi ah oo mataqaana baashar u soo qaaday ya laakiin aniga ahaanteeda heesta waa ka helay laakiin dad waxa soo dhigi doonaan si kale uu yaxanaa laakiin si kale uu ma yaxanaa ani asiga contact tos alenahay ama mataqaana live class isku naqaana ma jirto. hanasi wada Big Bro heesiis maqabaacil haweene Cimaamad ku tuura.
sidii cambalusha عزية شرفتيو سيدي عمبلوشة خلاص ما تقانا وحواي هذا اللي دمسترن برادا هذا اسك هذا المعها وهذه كتاب هيس كتاب إنك سعود كيسة عد أهان يو فنان أهان وسعود يا سنين معناها قف أو فنان ولا أو فنان واي يوقف أن لو تلقن وبوس أوسن هين تاجن ما كنوا معنا مال لو تلقن لكن أريدوا يسحسين موسيقى ما تقانا نين وحصوت مي سبحانه تمي مي ما قان ماشي إنك قرنت هاي يا هيست ودي أصلا تعرف نعول بكدي أصلا أريو كده لكن هذه فنان لو دي بلها نوعا هلاع خمر سوغاني هذه قف كان لو دي بلها هيست حليلة أبوان قطر أسود جاري هيست خطر واي لكن ما دام بيج برو قاعد حيدنا تاع سيف فني عامله إذا تاع وقف بدن ضد بدن ما أمنا يعني بيج برو نبض برادا هيست عن سيدي جسنة عصرية وحريرة أوه عصرية وحريرة عمامة كدورة عزية شرف لله سيدي عمبلوشة horta heesta maadaama ay tahay hees oo ammaan ah soomaalida dhan general ahaana ka hadlayaa hees waxaa arkaysaa mataqaanaa ii sheeg oo calaacal leh oo calacala la dheelay filmaanta hindiga fiiriya filmaanta mataqaanaa amerikaanka fiiriya oo mataqaanaa heesaha oo aan dhehe oo jecelka ah waxa waaye sida uu mataqaanaa waxaa loo qaadaa ama loo sameeyaa si oo qiiro leh oo heestan qofku mataqaanaa markuu daawanayo uu qalbiga ka dareemo qaabka loo jilaa si murugeysan ya aboto miratil wali ma aragteen mataqaanaa la dheelay ma jirto abti heesta dee ammaan tahay haddii mataqaanaa heesta calaacal ay tahay dheel iyo waxaas ma ku jiraan inaa waxaa rabaa duruuf aad jishid dadka qaarkood waa jiraan mataqaanaa sameeyo oo mataqaanaa soomaali ah oo filmaantooda iyo waxaas ku sameeyaan laakiin hees jecel ah hees ammaan ah oo la dheelay هاي إذا مش قبلها نبتي نقدر عيارت عصرية وحريرة أوه عصرية وحريرة عمامة كدورة يبتو عجيبة عمامة كدورة عكالا يدخي عمامة كدورة علشان يفتنك عمامة كدورة codkeeda ideeqee cimaamad ku tuura calashan iftiinka cimaamad ku tuura wax walba cimaamada lagu tuuray laakiin heesta horta mataqaanaa ammaan waaye hees horan uu soo saaro oo ahayd yarta tig waaye tig maantana cimaamad ma fahanteen marka heesa fara badan ama dad fara badan oo soo heeso wuu ka fiican yahay wuuna mataqaanaa ka khatarsan yahay maadaama tiisa ay tahay laakiin aniga waxaa idin tusayaa marka ama mid kaleeto oo heestan waxaa soo saaray allamo salmaan boqor kaamiramanka xasan toob muusiga mursal faladegan ereyadii iyo laxankii caasha fanaxley caasha xasan toob iyo faladegan loo fahmaya caasha fanaxley كل يوم عمر أنا إسلامتي كياتي وأصيغ صاحب لا أجري مهمة دينا وحيد إنه إسكجاب باش على صاملنا يو وبيج برو إنه متقنا ما أنت فنان إنه ربو إنه النقضاء مو مننا لكن فلات كي يوحصل أنت إسكجله مركو حالي هاي هروسعو إن هدي وحقو قلدين هنا ولا شيء جاي وحقو قلدين وحقو سعسين ولا شيء هروس على الله ما أنت برامج كيني أما هيستي رأشن كاك بحنين بيج برو وأذيك إنه وحقو برنسين واتاي أقيارتا هذه عدد فيديو إنها ترأكشن أتك بيشت وإنها فيديو أسو داون جريستا فيديو أيان ربع إن أسو داون جريسا وجدين يوتيوب كأيان كل حجرة فيديو جنوا كنا داقة يوسارنيا كتبنا لينكي كوريتا أيان هايلات سارايا أما دبل كليك أيان قصينا سو هالات سارة كتبنا عليها كنترول سي أما رايت كليك كوبي أيان ليها كتبنا نيو تاب أيان ليها أما داقة عصب أيان فرنايا كتبنا جوجل أيان كسي دورنايا كتبنا ماشي أنا حنكو قرايا يوتيوب لينك داونلودر meeshaas qaybta ugu koreys waa ku dhufanaya kadibna kan ugu koray oo ah YouTube Mate ama youtubemate.com meesha ku qoranta ku dhufanaya kadibna meeshan oo ay ku qoran tahay ama meeshan boxkan ayaan leeyahay control V ayaan leeyahay linkigi aan soo koobiyastay ama aan wata ayaan ku dhufanaya soo jeedin uu wareeganaya videoga aan rabo ayo intii keenay waxyaabahan oo geesaha ka soo baxayo waa pop up ama macna waxyaabo oo xayeysiin ama virus ah waa iska kansaleysa kadibna soo jeedin qaybtan oo cagaarka ah ka doornaysa resolutionka aad u baahan tahay ana videoga aad soo jeedin qaybtan hoose ayuu isaaran yahay waana uu dhaalan garaysan yahay tusaale ahaan waa kaas hada ku dhufto videoga aan rabay waa kana waa uu diyaarsan yahay marka hadda waxaan gudaha u galeynaa
editingka. Watahay akhyaare, haddana waxaan galaynaa qaybtii editingka ahaa ee qaabkii aan isku dul saar lahayn videoshani aan sameynay ee ahaa videoga reactionka ka bixinaynay iyo videoga hadda daaqada ii saaran ee aan aniga iska duubay. Qaabkee iskugu maajganayn karaa? Okay, marka koowaad waxaan tagayaa videogii oo aan hadda aan soo dejiyay ee aan reaction ka bixinay ayaan soo gelin doonaa. Meeshaas ayaan ku dhufanayaa, kadibna meesha downloadka soo jeedin badhanka downloadka waa ama folderka downloadka waa kana, kadibna kor ayaan u jiidayaa meesha ay ku qoran tahay 2y waa kana soo jeedin videogii waa kana inta ayuu saaran yahay. Kadibna waxaan leeyahay import. soo jeedin videoga waa uu soo galay waa kana oo videoga inta saaran waay. kadibna videoga ayaan soo jiidayaa, waxaan soo dul saarayaa halkan. Okay, kadib waxaan raadinayaa videoga meesha uu ka bilaabanayo oo ah videoga meesha aan rabo in aan ka bilaabo. Calaamadan ayaan soo jiidi doonaa, kadib horta codka ayaan iska xiri doonaa si oo mataqaana codkan uu iskaga xirmo. Okay, waxaan soo jiidayaa casterka ama mataqaana usha dheerta ah ee timelineka, kadibna meesha aniga dhegta aan gashanayo ayaan keeni doonaa. Okay, dhegta markaan gashanayo ayuu ka bilaabanayaa videoga. Okay, soo jeedin videoga meesha ayuu ka bilaabanayaa. Si hore id kugu sheegayna khiyaanada ku jirto qofka ma u baahanaysid waqti badan in aad ku dhamisid. Okay, waa kala jiidayaa si aan u arko codka meesha uu ka bilaabanayo in aan isa saaro. Okay, mar labaad ayaan dhageysan doonaa videoga codkiisa anigoo iska gaabinayo si aan adigana ay idin maqashin anigana ay idin maqlo. Okay, okay, videoga waa si kala jiidayaa si aan u arko meesha saxda ah oo ka bilaabanayo. Okay, meeshaas ayuu ka bilaabanaya, meesha oo isfurayo mataqaana screenka ayuu ka bilaabanaya, meeshaas ayuu ka bilaabanaya. Inta ayaan jaraya, waxaan leeyahay marka control B oo ah keyboardka, kadibna waa jaraya. Mar labaad ayaa waxaan kusoo celinayaa meeshiisa hore oo ah meesha uu ka bilaabanaya. Muhiimadu waxay tahay inuu islahaado. Okay, okay, labada muuqaal hadda waa ay isleeyihiin. Marka waxaan sameynayaa kan ayaan tagaya meeshan, kadibna ama haddaa mobile isticmaalaysa ama KineMaster da isticmaalaysidna waa isla meeshii. waxaad tagaysaa layerka koreeto, kadibna waxaa sameynaysaa waa iska soo gaabinaysaa 25% baa ka dhigayaa. kadibna shaashadan ayaan soo yareynayaa si aan u arko meesha aan marayo iyo meesha qofka marayo. Okay, waxaan rabaa in aan idiin sheego marka khiyaanada ku jirto video walba wuxuu leeyahay cod. qaybtan hoose u jeedin videogeyga waxa uu leeyahay codkan. marka waxaan sameynayaa waa weyninayaa si aad u aragtiin codka uu leeyahay. Okay, inta ayaan ku dhufanayaa. adiga mataqaana qaab kale ayaad leedihiin ama mataqaana wixii aad isticmaalaysiinba. soo jeedin videoga hadda codadkiisa waa ay weynaadeen. Okay, meeshan aan taaganahay marka videoga size-kiisa ayaan weyneynayaa. haddii aad isticmaalaysid KineMaster ama PowerDirect waxaad sameysaa labadada far adoo isticmaalaysa ama suulka iyo farta oo mataqaana farta yarta ah ee fardhaxaadka ku xigta ku kala jiid sida ani hadda mataqaana aan sameynayo oo kaleeto. Okay, markii aad saas aad sameysid oo kaleeto qaybta horeeta ayaan ku keenayaa khiyaanada iyo mataqaana sida aad u arki kartid. Okay, haddana waa sii weyneynayaa. kadib meeshan hadda aan taaganahay haddii aad aragtid qaybtan oo mataqaana buluuga ah ee codka ah iyo codkan soo jeedin way iswaafaqsan yihiin, sababtoo ah inta waxaad uga jeedaa meel god ayuu leeyahay. wavelengths allaha ama muujadaha codka ay sameeyaan markii aad duubeysid codka waxay sameysaa mataqaana sidii mataqaana muujadaha badda oo kale hirar ay sameysaa ama muujada ay sameysaa. marka muujadahan oo mataqaana buluuga ayaad ku qayb qaadanaysaa ama aad ku mataqaana maaj qaadanaysaa ama aad ku tusaale qaadanaysaa. videoga hoose waa videoga ani aska duubay ee aad u jeedaan. videoga koreetana waa videoga mataqaana reactionka aad ka bixinayo ee korsaaran. marka inay codadkooda iskorsaaran yihiin ee isku maajgaraysiin waxaan ku ogaanayaa meeshan aad jeedin. haddii xariiqda aan soo qaado oo godkaas aan keeno wuxuu ku aadan yahay godkan kaleeto. haddii aan bali aadho hal cod inuu yahay waa dareemaysaa, laakiin haddii aan qabto aan u kala leexiyo laba cod inay yihiin waa dareemaysaa. dhegeyso, waa ujeedin macnaha way kala hadlooyiin. marka hadda dib ayaan usoo celiyay control Z ayaan soo dhahay. marka
markii aad duubaysid that's why aan u isticmaalo marka mixerka markaad isticmaashid muuqaalkaaga caadiga ah ee kamerada aad iskaga duubaysid ayaa waxaa kugu qabanayo inta aad ka rabtid videoga aad duubaysid ama reactionka aad ka bixinaysid in aad inta aad ka soo qaadatid hadhowna markaad isku maajgelinaysid videoga aad adiga aad soo qaadanaysaa dib aad isku saaraysaa halahaaga ayaa kasoo jarnaysaa hadhowna waxaa sameynaysaa waa soo wada yareynaysaa kulligood markay waxaaga aad ka dhamaysid kadib kulligood soo wada yareynayaa kadibna waxaan sameynayaa kulligood ayaan hayraad wada saarayaa kadibna waxaan leeyahay halka mid ayaan waxaan kordhayaa right click kadibna waxaan leeyahay detach audio marka wixii cod ahaa dhan hoos ayay isku wada imaanayaan kadibna hayraad ayaan wada saarayaa kadibna waxaan leeyahay delay hadda marka codka oo mataqaanaa muuqaalkan oo hadda aa ujeediin oo hoose ee aniga aan iska duubay codkii ay ku wada duubay mixerka oo ugu wada shubay kamerada ku wada shubay bis ayaan isticmaalayaa midii aan mataqaana oo heestii caadiga ahay aan kasoo dejiyey youtube-ka codkii oo lahaa waa iska dileed gariyay hadda dib ugu laabto aan dhageysto saa ujeediin codka iyo wixii hadda dib ayaan isku saaray oo nadiif waaye cod kaleta iguma jiro marka waxaan filayaa in aad mataqaanaa ka faa'iidaysan doontiin ama aad fahanteen qaabka oo mataqaana loo maajgareeyo waxaana ugu sahlan si aad ku maajgaraysid inta saa ujeediin dhagaha ayaan gashanayaa marka waxaa ku ogaanaysaa marwab aad dhagaha iska bixisid iyo markaa dhagaha gashatidbo in aad meeshaas wax aageli doontid okay had tusaale ahaan markaa inta imaado dhagaha ayaan gashtay video ayaa soo galay waa soo baxay dhagaha way iga maqan yihiin waa soo baxay inta imaaday dhagaha ayaan gashanayaa video ayaa bilaabanaya waa iska bixiyey dhagaha markaan gashanayo dhagaha video ayaa bilaabanaya marka taas waxay ku sahlaysaa qaabka ugu fudud ee aad ku samayn kartid reaction markii aad video reaction aad ka bixinaysid waxaa isku daydaa in aad videoga bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa aad mataqaanaa bilow aad kasoo bilowdid ilaa dhammaadka aad mataqaanaa reaction aad ka wada bixisid ama half aad kasoo qaadatid laakiin qayb meesha aad ka bilaabaysid iyo meesha mataqaanaa ishag aad ku ekeenaysid inay ku kala calaamisnaadaan laakiin haddaad samaysid in aad qaybta ugu horeysa aad ka sharaxid aad iska mootisid qaybta dhex aad tagtid hadhow way kuu adkaanaysaa in aad dib u sharaxdid haddii aan steepka aniga maraay aadan marin haddii aad rabtid inaad qayb kasoo qaadatid waa inaad haysataa mixer codka kuu qabto hadhow waxay ku fudaanee in aad nuucaa rabtid aad u samaysid waxaan filayaa in aad fahanteen asxaabta la socda qaybaha dambe insha allah haddii aad fahantay qaybta hoose ee commentiga igu soo qor haddii aad fahmi wayso sidoo kale qaybta hoose ee commentiga igu soo qor haddii aad ku cusubtahay janaalka fadlan subscribe sar si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha dambe furo calaamada gambaleelka asxaabtaadan usii shargaray aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin